Kani waa Axmed. magacaygu waa Axmed. Muddo badan uu wax baranayay Axmed wuxuu ugu dambeyn ka qalin jabiyay dugsigiisa sare. Wuxuu isku dayay inuu ku biiro jaamacad, balse nasiib darro Axmed wuxuu awoodi waayay qarashaadkii jaamacadda. Ma uusan jiifane wuxuu isku dayay inuu shaqo raadiyo, laakiin nasiib darro shaqadii wuu waayay. Xaaladda ayaa ku adkaatay Axmed. maalin maalmaha ka mid ah Axmed asigu ku jira Facebook ayuu arkay muuqaalkan ama ujeedada aan ka leeyahay muuqaalka dadka daawanaya sidaas si lamid ah ayaa waxa awood maanta ku sii doonaa haddii aad koorsadaan bilaado maanta in aad ka dhaadhici karto sheeko walba aad ka leedahay muuqaalkaaga isla markaana aad ku soo jeedi karto dadka aad u baahan tahay inaad markaa wayna hadda iska diiwaangeliyaa Durba Axmed wuxuu ka qayb qaatay koorsadii video editka ahaa ee bixinaysay shabakadda Asad Groups. 2 bil kadib Axmed markuu koorsadii dhameeyay, noloshiisa oo dhan ayaa isbedeshay. Axmed wuxuu yeeshay shirkad weyn oo samaysa muuqaalada. Wuxuu la shaqeeyaa oo muuqaalo xayeysiin u sameeyaa shirkadaha waaweyn oo ka dhisan Soomaaliya. Axmed hadda wuxuu leeyahay xafiis u gooni ah, gaari, guri iyo nolol heer sare ah. sirta raaxadu waa inaad hesho xirfad. anigu xirfadeedu waa video editing. haddaba haddii aad rabto inaad u noolaato sida nolosheeda oo kale, fadlan linkigan kore iska diiwaangeli oo hel xirfadda video editing si aad nolol raaxo leh ugu noolaato. haddaba koorsadan oo socod doonta muddada gaaban waxaad ku baran doontaa dhammaan noocyada muuqaal sameynta, ha ahaato inaad jarjartid muuqaalka, inaad muuqaalka qaybtiisa dambe aad bedeshid oo studio cusub isgeysid, inaad adiga laga qof iska dhigtid oo kale, iyo effects kala duwan, ha ahaato color correctionka, inaad qofka colorkiisa aasici kartid oo markaa color qurux badan saari kartid, iyo sida codadka aad qurxi kartid, codadka aad u dheereey kartid, music aad dul saari kartid. wax walba oo muuqaal sameynta ku saabsan ayaa muddadan kooban kugu bari doonaa insha Allah. haddaba koorsadan waa free dhammaanteed, kaliya waxaad iska bixinaysaa $5 oo isdiiwaangelin ah oo adiga wax ku qabanayo oo kaliya. haddaba iyo golaaw ama u golaaw shabakadda Asad Groups inay bedesho xirfadaada ku aadan muuqaal sameynta, oo laga yaabo in xirfadan markaa barato kadib ay noqoto mid ka mid ah hamiyooyinkaada ugu sareeya oo laga yaabo mustaqbalka inaad ku shaqaysatid. haddaba maanta waa bilaab koorsada oo riix linkiga kore iskana diiwaangeli, jooji waqti aad ku luminaysid inaad isku ridid. maanta bedel noloshaada oo xirfad cusub baro inta ay goobaha waxbarashada kaa xiran yihiin, mashquul kala aadan gelin. haddaba waxay noo barana koorsada insha Allah.